waxaan ahaa maxbuuskii ugu dada yaraa ee xabsiga dhexdiisa ku nool. Hooyaday ayaa la xiray iyadoo ii uur leh kadib markii si been abuur ah loo eedeeyay. Sidaas darteed xabsiga ayaan ku dhashay kuna koray. Maanta waxay ahayd maalintii la isii daayay. Hooyaday waxay aad uga walwalsanayd ammaankayga iyo mustaqbalkayga, waxayna igu tiri tag oo raadso aabaha. Waxaan qaatay sawir ay hooyaday i siisay, waxaanuna tagay dhismo weyn oo xafiisyo. Halkaas waxaan ku arkay koox wariyaal ah oo waraysanaya nin madax ah. Isla markiiba waxaan aqoonsaday inuu yahay ninkii sawirka igu jiray. Waan u orday waxaana ugu yeeray aabbo. dadkii goobta joogay oo dhan waa ay naxeen, laakiin isagu uu wareersanaa. Si qabow ayuu iigu yidhi kuma aqaan. Markuu arkay sawirka duuga ah wuxuu u maleeyay inaan ka soo xaday. Si uu ii rumaysto waxaan si geesinimo leh uga siibay timahayga mid ka mid ah si loogu sameeyo baaritaanka hidda-sidaha. Isagu wuu iga jeestay, laakiin kaaliyihiisii ayaa timihii iga qaatay si uu u soo hubiyo. Waxaan ku laabtay xabsigii si aan hooyaday u arko. Waxaan u sheegay in aabbahay uu i diiday uuna imooday beenay. Laakiin hooyaday waxay iigu tacsiyeysay in aabbahay uu yahay qofka dunida ugu jecel. waxaan u ballan qaaday hooyaday inaan soo badbaadin doono, laakiin waxay igu tiri aabbaha ama ka guulaysan karo qofka shirqoolka noo dhigay. Aniguse waan ogaa in aabbahay uu ka xoog badan yahay adeerka weyn ee hooyaday dhibay. Markii uu dhammaaday wakhtigii booqashada waxaan mar kale ka baxay xabsiga. Askari dumar ah ayaa iga xumaatay nolosha aan ku jiro, laakiin waan u dhoola caddeeyey waxaana u sheegay inaan weli aabbahay ku kalsoonahay. Dhanka kale aabbahay ayaa guriga la fadhiyey awoowe iyo ayeeyo. Markaas ayaa waxaa soo galay kaaliyihiisii isagoo sida natiijadii baaritaanka. Waxaa la xaqiijiyey inaan ahay gabadhiisa saxda ah. isla markiiba farxad iyo qoomamo ayaa isugu dhex qasmay. Waxaan ku laabtay gurigaygii yaraa ee cidladu tiilay, waxaana ka helay raashin ay ii dhigtay deris naxariis badan. Nasiib darro intii aan islahaa cun weelkii ayaa iga dhacay oo jabay. Intii aan guriga nadiifinayay waxaa soo galay adeerka weyn iyo eedada. Waxay iska dhigayeen kuwa ii naxaya, laakiin ujeeddadoodu waxay ahayd inay iga helaan furihii tiknoolajiyadda ee awoowe. Waan u diiday waayo waxay ahayd ammaanadii awoowe. Waxay bilaabeen inay guriga oo dhan baaraan. Eedada ayaa si caro leh u jajabisay sawirkii hooyaday, halkaasna waxaa ka soo dhacay furihii qarsoonaa ee ay raadinayeen. Markii aan furaha qabsaday, eedada ayaa isku dayday inay iga xoogto, waana qaniinay. Adeerka weyn ayaa aad u carooday, wuxuuna isku dayay inuu usha igu dhufto, laakiin nasiib wanaag aabbahay ayaa soo gaaray xilligii loo baahnaa si uu ii badbaadiyo. Laakiin nasiib wanaag aabbahay ayaa soo gaaray xilli ku habboon. isagaa iga badbaadiyey khatartii, waxaana u sharaxay inaan ahay gabadhiisa dhabta ah. Aabbahay wuxuu ii ballan qaaday inuu had iyo jeer i ilaalin doono. Adeerkay weli ma quusan, wuxuuna rabay furaha gacantayda ku jira. Aabbahay wuxuu si degan ugu sheegay inuusan jirin qof naga qaadi kara waxaan jecelnahay. Waxay ku jeeseen aabbahay iyagoo ku tilmaamay sabool, xitaa eedaday ayaa ugu hanjabtay awood. Laakiin aabbahay wuxuu yidhi qof kasta oo na dhibo waa inuu bixiyaa qiimaheeda. Markii isbitaalka la geeyey baaritaan kadib waxaa la ogaaday inaan nafaqo darro aad u daran hayso. aabbahay wuxuu u qaatay in hooyaday ay i dhibtay, laakiin ayeeyo ayaa i difaacday. Markaan guriga nimid waxaan la yaabay hadiyado aad u badan oo aabbahay ii keenay si aan u doorto waxaan rabo. Xilligaas waxaan ogaaday inuu aabbahay yahay qofka adduunka igu jecel, laakiin weli kuma dhiiran inaan ka codsado inuu hooyo xabsiga ka soo saaro. Aabbahay cuntooyin aad u macaan ayuu ii diyaariyey, balse waxaan ka codsaday inaan hooyo u geeyo. Inkastoo uu murugooday haddana wuu iga oggolaaday. Waxaan aaday xabsiga waxaana cuntadii u dhiibay sarkaalad naxariis leh. Waxaan u sheegay inay hooyo u sheegto inaan aabbahay helay, laakiin ay wakhti qaadanayso inaan ku qanciyo badbaadinteeda. Aabbahay ayaa si lama filaan ah u soo muuqday. Si aan u qariyo sirta waxaan ku yidhi sarkaaladu waa saaxiibtii eedaday, cuntadana iyadaa u siday. Isagoo gaariga igu sido waxaan weydiiyey aabbe haddii ay hooyo khatar gasho ma badbaadinaysaa. Isagoo xitaa aan i eegin ayuu yidhi maya. Xilligaas wadnahayga ayaa xanuun dareemay, haddana ma quusan. Waxaan mar kale weydiiyey inuu weli hooyo jecel yahay iyo in kale. Aabbahay waxba ma dhihin, balse wuxuu ii habsaday si adag oo kalgacal leh. Waxaan dareemay inuu weli jecel yahay inkastoo uusan afka ka dhihin.